kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xiiseynaysa in heshiis isdhaafiya la sameeyo naadiga Chelsea oo ka dhisan dalka Ingiriiska. Wargeyska Sports ee ka soo baxay Spain ayaa warinaya in Barcelona ay xiiseynaysa in laacibkeeda khadka dhexe Bosnia Miralem Pjanic ay ku bedelato laacibka kooxda Chelsea ee Jorginho. Wararka laga helayo dalka Spain ayaa intooda badan sheegaya in kooxda reer Spain ay doonaysa in laacibkeeda khadka dhexe ee 31 jirka Pjanic ay ku bedelato ciyaaryahanka khadka dhexe reer Talyaani kaasoo ah 29 jir kana tirsan kooxda Chelsea ee Jorginho. Pjanic oo ah 31 jir ayaa kaliya u soo dhaqaaqay garoonka Camp Nou Stadium kadib heshiis isdhaafiya kaga yimid naadiga reer Talyaani kadib markii ay Juventus la wareegeen xiddig reer Brazil Artur Melo. ciyaaryahanka reer Bosnia ayaa xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay Catalunya ku qaatay si niyad ah asuu ku guuldareystay inuu boos joogto ka helo safka hore tababare Koeman. Natiijadaas ayaa ka dhigtay in haatan la xiriiriyo in qayb laga dhigayo heshiiska isdhaafsiga dhinaca Chelsea loogu dirayo Blues si loogu soo qaato Jorginho. Wargeyska ka soo baxay Spain Sports ayaa daabacay in kooxda Chelsea diiradda saarayso xaaladda heshiiskan isdhaafsiga ee Pjanic ay ku dalbanayso Jorginho xagaaga dambe. Tayere fikirkaada ka soo dhiibo sidee u aragtaa in Pjanic la siiyo kooxda Chelsea Barcelona ee ka soo qaadato kooxda Chelsea Jorginho? fikirkaada waa inuu muhiim